sida muuqata wiilkan waxa uu dhashay asagoo ka go'an labada gacmood waxaana lagu magacaabaa Maxamed Ibraahim Buule waa wiil Soomaaliyeed oo 2 sano iyo bar jira waxa uu ku dhashay degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamiyare iyo familkii uu ka dhashay ayaa dhawaan waxa ay soo gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxay iminka ku sugan yihiin mid ka mid ah xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala xaafadda Farjana Maxamiyare ayaa dhawaan waxa uu soo ildeysay tababar ku aadan sidii uu u quudan lahaa cuntada qaybaheeda kala duwan iyadoo tababarkaasina ay ka saaciday hooyadii oo lagu magacaabo Aamin Cali Ibraahim oo si qotar dheer leega sheekaysay waayihii ay la soo martay wiilkeeda Maxamiyare ayaa sida aad aragtaan waxa lugihiisa ku jira midda midig bur halka tan bidixna uu ku jira nanac si caadi ah ayuu isticmaalayaa isla mar ahaantaana u cunayaa Maxamed ayaa tababarkii hooyadii ku faa'iiday isla mar ahaantaana si aad u wanaagsan uga soo baxay marka la eego qaabka uu isticmaalayo cunnada qaybaheeda kala duwan iminka wuxuu cunayaa burkii uu ku haysto lugta bidix sidoo kale lugta midig ayuu iminka nanaca ku dhuuqayaa Maxamiyare ayaa tababarka ku aadan sidii uu cuni lahaa cuntooyinka aan kala sheekaystay qaabkii ay ku fahansiisay hooyadii iyadoo waqti dheer ku bixisay in wiilkeeda uu noqdo mid asaga keligii iskii u cuna raashinka qaybihiisa kala duwan waxayna ii sheegtay muddadii tababarkaasi uu ku soo gabagabeeyay cunugeeda isla mar ahaantaana iminka ay noqotay inuu si caadi ah u isticmaalo raashinka qaybihiisa kala duwan maamada oo wareysi gaban aan la yeeshana waxay tiri sida tan goormeen noqotay insaan wax cuno sida caadiga ah ku dhayso cuntada kale caadiga ah sida maastada miiska saxan sida muuqata hadda si caadi ay u isticmaalayaan raashinka uu cunayaa wataan taas bidixda ku haysta ninaca midna ku haysta hadda shaqadii gacmaha laga rabay xanuun kala caadi ah ma hayo ma jiro marka laga rabay gacmaha marka maxaad ka codsanaysaa dadka joogta ah ilaahay caalamiga cunugan iyo adiga ku qabta inaan wax iyo qabta nolosheeda meel saaran si fiican intii ii qaadin waan gartay marka kaamkaan aad ku nooshihiin ka waran noloshiisa laga doonka bari magaalada aad joogto qaab nololeedka ka waran qaab nololeedka aad marka weli ma la kaashatay arrintan rabaaniga ay jirto ilaha samafalka ama maamulka gobolka jiro marka dadka hadda ku daawanaya adiga kaamirada fiirinaya maxaad ka dalban lahayd inaad macnihi xaq u baad ka dalban lahayd meesha jiraan oo walaalahayga inaa wax ii soo qabtaan oo si fudud si degdeg ah hooyo Aamina Cali Aadan ayaa saxaafadda madaxa bannaan u xaqiijisay in tababarka wiilkeeda uu qayb muhiim ah ka qaatay aabihii dhalay wiilkan oo iminka ku xanuunsanaya mid ka mid ah isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Kismaayo waxay sidoo kale intaas ku dartay in ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay si dabacsan uga codsanayso inay familkeeda ka samata bixiyaan xaaladda murugaysan ee iminka ku sugan yihiin waxaana muuqaalkani si buuxda ugu dhabagalay nolosha dhabta ah ee ku nool yihiin familkan danyarta ah isla mar ahaantaana haysan hooy iyo agabkii daruuriga u ahaa jiritaanka familka waxaana familkani uu ka mid yahay familo ku tabaalaysan mid ka mid ah xirooyinka barakacyaasha ee ku yaala xaafadda Farjano sidoo kale waxaa jira tiro qoysas danyar ah oo ayaguna siyaabo kala duwan ugu dhibaataysan xirooyin ku yaala magaalada ugu dambeyntii nasiib xumo Maxamiyare iyo familkiisa ayaa waxay noqdeen kuwo iminka ku nool hoy ka samaysan cooshado iyo bac sida muuqatana aan waxba ka celinaynin xilliyada habeenkii qabowga aadka u daran iyo roobabka ka jira gudaha magaalada waxaana dhammaan ummadda islaamka meel kasta oo ay joogaan waajib ku noqonaysa inay caawiyaan familkani si loo samata bixiyo xaaladda ay ku sugan yihiin Cabdifataax Saalin Dhacde Kismaayo يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل